السلام عليكم وانا islaami afar Soomaali fans meel kasta joogtaan waxaan leeyahay xil iyo xal wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Arsenal News oo ku daawataan markii ugu dambeeyay qoray Gunners waxa soo jeedinaya barnaamijka aniga Nuuraan Shakra halkaan ay daawanaysaan waa Arsenal Soomaali fans aan ku bilaabana barnaamijkeena waxa leeyahay kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa quudareynaysa saxiixa Jesus Corona kaas oo hore u xiiseynayeen kooxaha kala Sevilla iyo Fiorentina ciyaaryahanka ayaa lagu qiimeeyay 21.4 milyan sida qortay Daily Mail dhanka kale waxa leeyahay kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa hakisay wadahadaladii ay kula jirtay ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta Southampton Ryan Bertrand warkaasna waxa soo daabacay AFC Bell kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa xiiseynaysa saxiixa weeraryahanka Everton Dominic Calvert-Lewin Gunners ayaa ka shaqeynaysa sidii ay u xoojin lahayd dooqadeeda weerarka ee xilli ciyaareedka cusub sida ay qortay majalada Mirror kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaa ku soo biirtay loolanka loogu jiro saxiixa Tariq Lamptey oo ka tirsan kooxda Brighton kaas oo hore u doonaysay Arsenal sida ay qortay majalada The Sun kooxda kubadda cagta Leicester City ayaa qarka u saaran inay u dhaqaaqdo laacibka loo buuxiyay booska James Maddison sida laga soo xigtay Leicester Mercury wareegyo kala duwan ayaa sheegaya in Arsenal 1.5 milyan oo gani ay ka gudbisay daayarkan inkastoo wali heshiiska aan la dhameystirin labada weeraryahan ee kala Aubameyang iyo Gabriel Martinelli ayaa maanta u dabaaldegaya dhalashadooda waxaan leenahay dhalasho wacan waxaan rajeynayaa inay seasonka soo socdaan oo cadar ka dhigi doonaan qalcadda Vladimir Stadium waxaad isweydiinaysaa halkuu ku dambeeyay xiisihii Ben White waxaa la wariyay in Ben White uu ka warqabo xiisaha Gunners waxaa la fahansan yahay inuu aad u xiiseynayo waraaqista Arsenal kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa la filayaa inay u soo marito dalab ka fiican kuwii hore oo gaaraya 50 milyan si ay gacanta ugu soo dhigto Ben White وانا inta saaxiibayaal barnaamijkeena maanta waxa soo jeedinaya aniga Nuuraan Shakra inta kulmin doono waxaan idin tagayaa sidaas nabadgelyo